gudoomiyaha madasha xisbiyada qaranka madaxweynihii hore dowladii ku meel gaarka ahayd mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay xaaladaha xanuunka coronavirus isagoo baaq u diray madaxda dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed. Sheekh Shariif oo warbaahinta shir jiraayid Muqdisho ugu qabtay ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka taxadaraan in dhexdoodu uu ku faafo COVID-19 oo kiisas kamid ah laga helay dalka Soomaaliya. Madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayuu baaq u diray Sheekh Shariif inay u midoobaan sidii looga hortagi lahaa cudurka siyaasadeen isla markaana beesha caalamka dhankooda looga baahan inay kaalintooda ay ka caawiyaan dadka Soomaaliyeed ay muuqato mid ugu horeysa waxa waaye dawladdu inay kor u qaado dadaalkeeda ku aadan joojinta faafitaanka cudurkan iyo la tacaalida cudurka dadka uu ku dhacay sida in la helo qalabkii baarista iyo dawooyinka loo baahnay iyo waxyaabihii looga hortagay oo ay kamid yihiin dawooyinka loo isticmaalo nadaafadda dawladdu inay isku dubarido fikirka iyo aragtida iyo awoodda shacabka si looga hortago arrimahan in ay la wadaagto macluumaadka dhabta ah ee ku saabsan cudurkan faafitaankiisa inay la wadaagto waxa wada ogtihiin in jahawareer badan oo ka jiro macluumaadka ku aadan cudurkan in dadka cudurkan oo ku dhaco in la helo meelo gaar ah lagu daweeyo oo aysan naqanin kaliya in la karantiilo oo laga dhex bixiyo bulshada ay helaan dawooyinka ay u baahnaayeen sidaas oo kale in canshuur raaf loo sameeyo waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka dawooyinka iyo shidaalka talooyinka ku aadan aan isleenahay waa muhiim inay qaataan ganacsatada waxa kamid ah ayagana in la daryeelo loona weeciyo kharashaadkii ku bixi jiray iyo masaariiftii xajka iyo umrada sidaas oo kale zakooyinkii in loo weeciyo dadka dhibaataysan noloshooda saameynta oo ku yeelanayo cudurkan sida dadka shaqaalaha ah ee laga yaabo inay shaqada aadi waayaan iyo dadka danyarta ah dhamaantood gaar ahaan barakacayaasha sidaas oo kale in la keeno waxyaabaha daruuriga ah aan sheeg in sidaas oo kale dawooyinka oo looga hortago waxa la socotiin inay maalinta ka dambaysa ay sii qaaloobayaan ganacsatadu inay waajib is saaraan inay noqdaan wax mutawafir ah oo la heli karo oo suuqa yaala inay noqdaan waxa jira talooyin ku aadan dhaqaatiirta Soomaaliyeed meel ay joogaanba ayaguna inay ka qayb qaataan kor u qaadida wacyiga dadka iyo fahamka dhabta ah cudurkan iyo sida looga hortagi karo iyo sida looga bogsan karo waxaan la wada soconaa in kala aragti duwanaansho badan ay jirto arintaasna waxay qayb ka qaadanaysaa cudurku inuusan joogsanin inuu sii fido ayay qayb ka qaadanaysaa iyo dhaqaatiirtu inay qorsheeyaan oo qoondeeyaan dhaqaatiir u taagan hawshaas ama ha noqoto wacyigelinta iyo la socodsiinta xaqiiqada cudurkan iyo faafitaankiisa ama ha noqoto daweynta dadka qadiyadan waa qadiyad dadka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed amaan taabanaysa marka cid walba oo qayb ka geysan karto oo dhaqaatiirta ay ugu horeeyaan iyo sidaan soo sheegnay ganacsatada dawladda iyo qaybaha kale bulshada ee waxtarka ah ama codkooda la maqlaayo inay dhamaantood u waajahaan si midaysan sidaas oo kale waxa jira talooyin ku aadan beesha caalamka oo madashu ay soo jeedinayso ah in la helo agabkii loo baahnaa sida agabka baarista dawooyinka ka hortaga iyo dawooyinka kaalmeynaya qofku inuu bogsoodo in loo helo dhaqaale maxaa yeelay waxa la socotiin cudurradan oo kale waxay saameyn ku yeeshaan si xoogan dhaqaalaha marka dadka Soomaaliyeed meel joogaan in loo helo dhaqaale lagu caawiyo xaaladda adag
hadalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli ay korodhay kiisaska la xiriira COVID-19 oo laga helay Soomaaliya kaas oo gaaraya 60 ruux. Nasteex Farxaan Shirdan ee CWTV magaalada Cabudwaaq ee bartamaha Soomaaliya.